بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة الدرس كم ولا لذة المامين عن الضوء الانحراف السلوكي والأخلاقي عند الشباب أو لدى الشباب قالوا عدل انت قشة دقك يا أخلاق وصفجك أما وعنوان كفعنا in تخصصات كإنسانية يعني علوم سوسيولوجي أما أنثروبولوجي أما وحلا نوع عيد له إنه كهذا الشيء كنا فيعنا إن ميدانية يعني ضد قارة إن لدراسيه يودن قارة يدل قارة نبتكجرته لكن waxay u muuqataa in anigu takhasuskaana ma lihi si guudoon in aan uga warrami doono ama daraasaadka laga qoray bulshooyinka inala nooca ah waxyaabaha laga tilmaamay in wax ka tilmaami doono markaa oo laga yaabo in wax badan wadaagno dad yaga wax laga qoray ciwaanku waxa uu tilmaamayaa qalooca dhanka dhaqanka iyo akhlaaqda kaga dhaca dhalinyarada وقلوعاسي waxa uu keensanayaa qofku inuu ka baxo macaayirtii ama wixii dadku ay qiimeynayeen wax ku qiimeynayeen ee bulshada agtooda wanaag iyo quruxda ka ahaa oo uu baxo wax bulshada ay u aragto wax laga xishoodo ama dhaqan xumo ah ama bulshada ku keeni kara raadaan fiicnayn islaam ahaanna wuxuu ma inooran karnaa mala waa faca hore uu gudbin kari waaye wuxuu aaminsanaa facaaci ka dambeeyay inxiraafka dhalinyarada ku dhaca uu tiro badan yahay inxiraafaad jinsiya ayaa dhici kara oo kufsiga iyo zinada iyo fawaaxishtaasi ah waxa dhici kara inxiraaf xagga mucaamalaadka ku saabsan oo laaluush iyo mukhadaraat la isticmaala iyo khiyaana zawjiya iyo kadib been iyo nifaaq iyo xuquuqul waalideyn iyo wax la mid ah waxa dhici karta in dadku qaabkay u wada hadlaan wax ku saabsan oo afxumo iyo hadal adeeg iyo cay iyo wax la mid ah waxa dhici karta mid xagga maalka ku saabsan oo tuugiya dhac iyo boob iyo wax la mid ah waxa laga yaabaa inuu noqdo mid ku saabsan systemka iyo ummadda dowladnimadeeda oo waraaqaheeda iyo waxeeda la wada taswiiriyo oo si qaabaan sax ahayn loo sameeyo soo duuduub oo dhaqan xumadaasi bulshada ku dhacda siba dhalinyaradeeda waxay yidhaahdaan waxa keena laba sababood أسباب داخلية وبلشدة نحدة كتمادة هي أسباب خارجية ودبدة كتمادة سيدة دبنا قرآن كوحينا برا دتكو هداني جودها كتشبين إن أنا عدو قد بدو تشبين كريم وما كوسيدو دبا إلهي الصحابة دي شبتي وحوط المامي مركا إلهي سي وحنو دعن قل هو من عند أنفسكم asalku waxa weeyaan bulshadu gudaheeda markay ka jabto iyo ay cadawgana u jabtaa cadawgu waa macruuf inuu dagaal ku jiro ama hay-ad ha ahaado ama dawlad ha ahaato ay dunidaynu maanta nool lahay waxa jira waxay yiraahdaan fannu takhriib subversion oo dagaalka tooska ama yaana dagaal kale dawladu isku qaadaan han noqoto mukhadaraad wada kale lagu faafiyo han noqoto dhaqan xumo lagu faafiyo ila xad hadhow la isku torture gareeyo imka waa maqlaysay idaacadka dunida iyo waxa laga warramayo aniki Trump loo oran jiray gurigiisa loo dhacay FBI du baadhaysay wararka soo duldulay waxay tilmaamayaan waxa laga soo helay inuu yahay dhaqan xumo Macron sameeyay
والدولة دن والدولة مدحوينهedii dhaqan xumadiisa intay ururisay hadhow rabta inay wax ku torture garaysa ama wax ku marka subversionku dawladuhu dhibta isku hayaan bay kamitay marka in hay'ada yimaadaan dhaqan xumo faafinaya jinsi faafinaya mukhadaraat faafinaya wax la nooca faafinaya oo wax dunida oo dhan ka jira deewana ogtiin taariikhda bini aadamka dawladaha gargabeedka ugu xooga badani wadana inay ugu duuleen inay darooga cabsiiyaan opium warka waa maqasheen dagaalkii xashishada waa ingiriis iyo faransiis iyo maragay dawladaha waaweyn baa ku qaaday China in la cabsiiyo baashaasi te kuwa tamarta daran leh xoog uma baahnee xoogaa lacag oo la dhex marmariyay waxbay u baahan yihiin in qudhunqadheedhkoo dhan lagu faafiyo wax leenahay markaa asbaabta keenta asbaab waa asbaab khaarijiya waxyaabaha la isu dhex mariya waxaa ka mid ah iskuullada ajaanibka ee duwalku furtaan meeshii la doonaha laga furo iskuullada ajaanibka inta ugu badan leh value iyo qiyam ummad kale leeday bay faafinayaan waa run xoogaa xisaabaya waa lagu dhigayaa in chemistry iyo intaasi waa lagu dhigayaa laakiin sadaqa ma jirto lilaahi cidina cid waxuma siiso dan kaloo ku lamaanan oo ka dhex socda mid gaara maaha waa sideedba iskuul ajanabi haddaad aragto fikrad buu wadaa sida awgeed waxaan leenahay asbaabtaasi waa asbaab khaarijiyo gacan dabadeed ay wado asbaabna waa asbaab daakhiliya taasaana muhimka ah waayo Soomaalidu waxay yiraahdaan hebel wuu ku caayay bay yiraahdaan muxuu caayaa walba colbaanu ahayn buu leeyahay ninka cusha dagaalku idinka dhaxeeya caydiis waxba ku yeelmaysaa walba waad ogeedina coltihiin cid walba ama diin ama dhaqan ama dhaqaale ama waxa isku hayseen inay bulshadaada dib u geysato walba waad filaysay aday ahayd inaad ka gaashaamato isaga ceeb kuma aha isagu waa nin masaalixdiisa iyo dantiisa iyo wuxuu arkay in faa'iido ugu jirto faafinaya markay namaadna asbaabta daakhiliga waa tira badanta asbaabta daakhiliga ee keensata dhalintu inay weecato waxa kamid ah bay yiraahdaan mesela atafakuk al-usri burburka qoyska ku dhaca oo qoysku waa meesha mabaadi'da ay ummadu rumaysan tahay lagu beero waa unuga koowaad ee bulshadu leedahay waa meesha laga rabo dhaqanka afka akhlaaqda waxay dad aaminsan yihiin inuu noqdo hoyga koowaad ee faafinaya haddii gurigu burburo ama dhaqankiisu burburo ama uu kala jajabo ama uu noqon waayo asbaabaha maalan tirada badan lee kale ay keensadaan inaanu gurigii la rabay noqonin waa wax abuura dhalinta guriga ku kortaa inay weecato waxa kaloo ay sheegaan laba mas'alo isu cagsiya waxay dhahdaan faqrigu haddaan iimaan qawi jirin faqrigu bay dhahdaan wuxuu keenaa cadam istiqraar almujtamac bulshadu inaanay deganaanin dhaqaale yaridu waxay keensataa bay leeyihiin bulshadu inaanay deganaanin sida awgeed beenta iyo khiyaamooyinka iyo waxay bataan markay dadku moodaan xirfad dhaqaale lagu soo heli kara inay tahay oo faqrigu sababay cagsigeeda waxay yidhaahdaan maalka la midaysna haddii maalku bato dhaqan fiicnaanina aanay jirin dhalintu wax walba tijaabi bay is yidhaahdaan hadiyo goor waxay ku dhacdaa dadka maalqabeenka caruurtooda waayo wax kasta wuu awoodi karaa inuu sameeyo dabeetana barorta tijaabi buu marka hore ku galaa how is it siday tahay eeg kadibna waa la durugtaa waxa ka mid ah bay tilmaamaan inuu yahay alwaasic diiniy dadka oo diinkoodu hoos u dhaco الإيمان بالله وباليوم الآخر يوحي كالرتب ميي أي هوسو دعان بلشدو سين ويدا مدنان بدن دين تودا إني دادك كو دقان أما السيستم كدولة دماء هنقضو أما السيستم كوحبرشة هنقضو أما السيستم كقريو لسيين هنقضو إنه إنت بدن عرفتو إن القرآن حفظ دوا كدد الله لكن
mala xifdiga waxyaabo badan oo ka muhiimsan baa luma oo aan dadaal badan la siinin waxa ka mid ah bay yidhaaheen waxyaabaha keena dhalintu inay inxiraafaadkaasi ama qalloocaasi inuu ku dhaco alfiraaqu walbataala bay yidhaahdaan waqtiga waxay ku qabtaan inay waayaan inay shaqo beelaan nin dhallinyaro ah oo caafimaad qaba oo soo toosay oo wuxuu qabtaba aan garanaynin ama haynin waqtigu ku tiro badan yahay shaqo aan haynin firaaqaasi dadka wuu qarribaa bay yidhaahdaan waana masaladu nebigu tilmaamayey nicmataani maqbuulun fiihima kaiiru min annaasi asixatu walfaraaq laba nicmaa jiro dad in badan ka mid ee ay ku kadsoomaan waa caafimaadka iyo firaaqa ninka dhallinyarada waxay dhahaan firaaqu uma fiicna inuu mashquul yaa fiican shaqo waxbarasho wax akhris xataa cayaar jirdhis waxay doonta ha noqoto qofku inuu mashquul yaho aan waqti ku soo bixin baa roob bay dhahaan ninka dhallinyarada ah si awgeed waxay dhahdaan firaaqa tirada badan leh iyo bataaladuna waa shaqo la'aan innaga dee dadkuba ma shaqeeyo meel ay u kallahaanba inaanay garan bay u badan tahay labaduba waxay ku keenaan bay leeyihiin dhallinta inxiraafaadka suluugikaa bay ku keenaan waxyaabaha keena waxaa ka mid a waan iska wada dul maraya waxaasoo dhan waxa laga yaabaa mid walba inuu yahay wax dadyawga qaarkood ay buxuud ka qoreen laakiin uun waa inaynu istilmaamno uun waxyaaba keena waxaa ka mid a bay yidhahdeen fasaadu lbii'a environmentka oo xun inta badan waxay yidhaahdaan dhulka fuqarada badani degan tahay ama dadka dhaqanka xumi degan yihiin ama mashaakilaadkaasi ku badan yihiin dadka ku koraana dhaqan xumada way la koraan ee ilaahay waa qaarka qur-aanka ku leh walbaladu ayibu yakhruju nabaatuhu biidni rabbi waladii khabuha laa yakhruju ilaa nakida dhulka fiican dee doog wanaagsan iyo wax fiican baa ka soo baxa baa la yidhi meesha dirida iyo abaarta iyo aan ahayn dhulbeereedkana waxaa ka soo baxa baa la yidhi nakid mid qaadha ama mid aan naf badan lahayn idan bini aadamkuwana waa la mid bii'ada fiican qofka ku dhex kora bii'adu waa deegaan deegaanka fiican qofka ku dhex kora isagaa deegaanku ku toosinayo waayo xumahaba inaad gaadha waxa laga yaabaa inay adkaato laakiin deegaanku hadduu liito waa dhib deegaanka liita waxaa ka mida bay yidhaahdaan kow dhallinyaradu inay saaxiibba xun yeeshaan oo waxay yidhahdaan ninka dhallinyarada inta uu la hadlo ama uu wax ka qaato ama la sheekeeya mar kasta way ka badan tahay bay yidhahdaan qof weyn intuu laba hadlo waxay yidhahdaan ninka dhallinyarada ahi qaarkood waxay ku tilmaamaan maalintii 8 saacadood in ku dhodhow inuu hadlo waxay yidhahdaan 8 saacadood 8% ma gaadho intuu qof weyn la hadlaa wuxuu la hadlaa uun jiilka ay isku faca yihiin ama ka sii yaryar ama nooca uun ayuunbay wada hadlaan jiilkaasi markaa hadday jiil liita yihiin way israadaynayaan soomaalidu maxay odhan jirtay baruur quraa baruura qurmisa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa aljaliisi saalix wajaliisi suu saaxiibka ama fagaaraha fiican naadiga wanaagsan aad la fadhiisato dadka fiican aad la fadhiisato iyo dadka xun aad la fadhiisataa siday kuu raadaynayaan buu nebigu ku tilmaamay inay la mid yihiin nin meel forginga meel dab lagu shidayo fadhiistay iyo nin meel cutuur lagu iibinayo udug fadhiistay say u kala gedisan yihiin midna waxa la yidhi ama dambasbaa kaaga soo duuli ama maraduu kaa gubi ama waxaan faa'iido lahayn baad ka qaadi doontaa majliska kalena waxaa la yidhi dee udug iyo inaad wax ka iibsatay iyo inuu wax ku siiyo waxaasay u dhaxaysaa qur-aankana ilaahay wuxuu inoogu tilmaamay aakhiro dad badan oo calaacalaya inay ka calaacalayaan saaxiibkii ka xumaaday markay dunida joogeen ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وقيقيا شلاتدي يقولي بل ما ننهبل صاحبك يالني لقد أضلني عن الذكر
بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا إلهي بين وقوى الرمي سبحانه وتعالى meesha dambe dadku tagi doonay aakhira la yiraahdo qaar badan calaalkoodu inuu noqon doono inuu ka calaacalayo saaxiibkii dunida ku lahaa oo isagu yahay sawgeed baa ilaahay nabigiisii wuxuu ku tawjiihiyay dadka fiican inuu la fadhiisto dadka fiican waa kuwa xagga alla ku socda واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إلى النبي سي محمد عليه الصلاة والسلام بوحوك المامية نفط هذا واحد كحب بستان لتشوكتا دتك عبادي سنة يا إلهي كحرنا إلهي ودو كوا وحيستا حقودا وحبا إنداها وتاقب با إلهي انت قلبي قودا إلهي حسكي سلقا قفلينا كوا وركودا نها أقبل با إلهي لي إذا وحلوت الماما يا دتكو كحرنان لها دتكو إذا رفقاء السوء وحكم إذا اللي بدأ والد لفتودو إنه تقريبا يهين يقول لك قيلة هذا ترى هذا علمه يون لك قيلة يقول سيجارك لك عبا هذا ترى هذا علمه يسيجارك عبي هذا بمرد الله حقان كاغا وعدا هذا عندي قدوة وهيدا للربين وكضيدو سوجد النبي قلت المام ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو يمجسان أو ينصران حديث كي صحيحها وفق استابق منام بكل شاه لكن اللي بدا والد بقى ما يهودي كدغا اما نصراني كدغا اما كان كدغا ابو النبي قلت الماميا تمعني هذا حويان اني iyagu luminaya waxyaabaha ay sheegaan nimanka daraasaadka sameeyay waxa kamid ah waxay ku tilmaamaan al-hurriya al-mutlaqa at-tarbiya al-haditha an ideology-gan dambe reer galbeedku qaatay tarbiyada waxa aad ugu badan eray la yiraahdo xurriyad ilmaha mas'uuliyad si uu dareemo xurriyad si kan si bay aad u tarwiijiyaan wa fiicantay qofku inuu nooc min al-hurriya uu helo inaanu cidhiidhi badan dareemin laakiin haddaad dee xadhigiisa luqunta u sudho tidhaahdo iska soco xurriya mutlaqa oo uu markaa maankiisa oo aan tajribo iyo aqoon ahaantoona ku fillayn ninka dhallinyaradii inta badan tajaarib badan ma leh aqoontuna inay iska koobantay baa laga yaabaa haddaad u sii dayso xorriyaddaas iyaduna waxay leeyihiin wax badan bay lugoysaa waxa kaloo ka mida bay yidhaahdaan adduquudaat annafsiya cidhiidhiga marka dagaaladu dhacaan ama dhibaatooyinku dhacaan ama warwarrada badan ee nafsiga ee qofka haleela sababtay doontaba ha u noqoto waxay ku haleelaysaa shaqo la'aanta ku badatay meesha nabadgelyadeedu yaraatay mustaqbalka uu arkiba waayay kuwii isaga ka horreeyo agtiisu un taagtaagan oo aanu arag meel ay u socdaanba waxay yidhahdeen waa duquud nafsiya xataa waxay keentaa bay leeyihiin al-ikti'aab qalaq iyo maxaa la yidhahdaa anxiety iyo inuu qofku maskaxaanba buufiska waxay odhan jireen inuu warwaraba isku buuqa ama wax la midi ku dhacaan inxiraafaadkaas aynu asbaabahooda wax ka mida tilmaamnay qofkana dhib bay ku hayaan bulshadana dhib bay ku hayaan qofka caadiga ah hadduu dhaqan ahaan weecdo dhib bay ku hayaanoo kow muruu'adiisa iyo sumcadiisaa dhimata qofka bini aadamkii ma aha qoloftan sare waa dhaqanka iyo akhlaaqda uu leeyahay hadday sumcadaadu dhimato oo bulshadaada dhexdeeda aad mambuud qof la fogeeyey ku noqotid oo aad weydo ixtiraam ilaakhariin dadku inay ku qadariyaan haddaad weydo waxaa adkaanaya inaad ku dhex noolaato yani inaad shaqo hesho inaad qof la dhegaysan karano waxaa lumaya shakhsiyadaadii aad bini aadamka ku dhex lahayd oo dhan baa lumaysa marka waxaad u sii weecanaysaa uun adiguna qaska iyo inaad wax qaribtid waxay yidhaahdaan waxaa ku dhaca ta'niibu damiir inuu canaanta isagu isku badiyo qayrkaaba waa kan guulaystay adiga maxaa cidladan ku dhigay waxba iga si ah inuu ku wareero
waxaana sababta keentay ay tahay bay dhahaan dhaqan xumadan ku dhacay taasi waxa laga yaabaa inay keento duu jaamacad ku jira inuu ka baxo madrasada inuu ka baxo inuu shaqadii bulshada waayo shirkadka ama dadkii wax shaqaalaysan jiray inay shaqaalayn waayaan dhaqamada laga dareemay daraadeed noloshuba inay cidhiidhi ku gashaa suurtagala bay leeyihin waxaa intaa dheer bay leeyihin waxa suurtagala xaaska asxaabta dadkii uu ku xidhnaayo o dhan inuu waayo haddii dhaqankaagu uu qalloocdo aada u xumaado ilaa xad ay yidhaahdaan shakhsiyadiisa dhaqaalaha xataa raad weyn ay ku yeelanaysaa bulsho ahaanna waxaynu ognahay ummadi ma dunto ilaa akhlaaqdu dunto mooyaane ummaddu gaalnimo qura kuma dunto hadday nooc min alcadaala iyo akhlaaqi jirto ilaahay jaanis dunida wuu siiyaa laakiin hadday dhaqanka iyo akhlaaqdu uu dumaan waa adagtay ummaddu inay sii jirto inaha haddaan iskaga koobo waxyaabaha guuda la tilmaamay waayo waxaynu nidhi haddii aynu rabno innaga bulshadeenna waxay u baahan tahay daraaso gaara inaynu ku samayno oo tilmaamaysa inaynu hello xataa waxaanaan sheegnay nisabku sidee yihin teeba inugu xoog badan maxaa aynu priority-ga maxaynu mudnaanta siinaa dawaynteeda waxa laga yaaba waxaan oo dhammi inay yihiin asbaab inxiraafka keenta laakiin bulshaba in qaar ku badan yihin bulshaba waxyaabaha qaarkood raadaynta ku hayaan ay ku badan yihin waxaasina waxay u baahan yihiin dee ixsaa'iyaad iyo daraaso miidaanaya in bulshada questionnaire lala dhex qaado la daraaseeyo la ogaado cumuuman waxaynu leenahay maxaa dawo ah waxaan leenahay dawada koowaad waxay yidhaahdaan waa wax ka yimaado qofka gudihiisa intaynan u imanin pressureka iyo qaanuunka iyo waxaa kale pressureka bulshada ku hayso ama biicadu ama qaanuunka ama waxa intaynan u iman waxay yidhaahdaan waxa koowaadee qofka toosiya waa waxa gudihiisa ku jira qofku laba sababood midunbuu u inxiraafay bay yidhaahdaan in inxiraaf caqadiya ku dhacay diin ahaan inuu qalloocday oo taa waxa ka ratibma qofka value-ga wax ku qiimaynayaba inay lumaan waxaad wax ku qiimaynaysa hadday lumaan macnaheedu waxa weeyaan waxaan xun aad samaynaysaaba inay wanaagsan yihiin baad u haysataa waxaanaad wax ku qiimaynaysaa hadduu qaldamo wuu ka daran yihin qofka shahwaatu nafsiga oo quri ka qaldameen waayo kani waxaan wuxuu samaynayaa isagoo aan dhibba dareemaynin isagoo arka inay albaxnimo tahay ama wanaag tahay ama xadaaro tahay ama dadnimo tahay ama xorriyo tahay ama wax la nooca tahay kaas waxa ka qaldamay waa qiyamkii waa value-gii baa ka lumay idan wuxuu u baahan yahay in masalada tan la toosiyo waxaa kaloo dhici karta inay xagga shahwaatu nafsiga ka timi bi-adan uu ku dhex noolyahay iyo rag iyo dumarkan isku walaaqmay iyo waxa kan inay yihiin waxa sababay mid kastaba ha noqotee waxaynu leenahay waxa koowaad ee bini aadam lagu islaaxiyaa waa in qalbigiisa la toosiyo waxay u dhigantaa bay yidhaahdaan markay culammada ijtimaacu tilmaamayaan waxay dhahaan waxay la mid tahay culammada tibku waxaanay sameeyaane la yidhaha vaccinationka yacni meesha xanuunada faafee khatartii markay yimaadaan waxa koowaad ee dhakhaatiirtu ay ka fakeraan waxa weeyaan tallaal ma leeyi intaynan daawo raadacaynin waxaynu dadka siino oo hadhow waxaan hadduu yimaado ka celiya ma jiraan waa precautionska markaa in laga hortagaabaa laga horraysiyaa in la daaweeyo qofkoo diintiisa la dhisaa inta uu yar yahay waxay keensataa inuu mutacam yahay in qofkan la tallaalay oo laga tallaalay dhaqan xumada tallaalkaasi waa caqiidadii waa diintii maalan waxaynu soo tilmaamnay tusaalaan ku siinaya qur-aanku ina siiyey waxaynu soo tilmaamnay rafiiqa xumi sida uu kuu raadaynayo iyo khatartiisu say u tahay laakiin yuu raadeeyaa qofka marka hore ah qaabil lilinxiraafka ayuu markiiba raadeeyaa qofka marka hore jilicsan ee aan dhisnayn buu raadeeyaa ama hadduu qofku marka hore isagu dhisan yahay isagaa wax raadaynaya walidaalik qur-aanku labadaba waa inoo tilmaamay mid saaxiibkii raadeeye iyo mid saaxiibkii raadayn kari waayey
mid saaxiibkii raadeeyo inoo tilmaamo aayadii qur'aan aan akhrinayo hore yaa waylata laytanii lam attakhid fulanan khaliila laakiin suuratu saafaatna ilaahay wuxuu inoogu tilmaamay qolo jannada gashay oo iswaraysanaysa oo mid leeyahay war bal midinkaan qabo aanu saaxiib ahaan jirnay oo balaayo igu yeedhi jiray halkuu ku dambeeyey aan ogaado oo dabeetana ma naarta inta la tusiyo isagoo naarta bartankeeda ku jira u arki doono qaala qaa'ilun minhum innii kaana lii qariin yaquulu ainnaka la min almusadiqiin saaxiib baan lahay odhan jiray buu yidhi war ma waxbaad rumaysantay war adduunkan horumaray dhankaaga ka raaca waxaan berigii hore dadku ay haysan jireen ka hadh odhan jiray aidaa mitna wa kunnaa turaaban wa cidaaman a innaa lamadiinuun wuxuu ugu odhan jiray buu yidhi ma intaynu baaba'noo lafa iyo ciid iyo waxaan noqonnaabaad rumaysantay in layna soo saari doono layna abaal marin doono markaas saaxiibadiisii kale jannada kula jiray buu wuxuu leeyahay qaala hal antum muطalicuun war balkaama soo arkaysaa faطalaca fara'ahu fii sawaa'i ljaxiim baa ilaah yidhi markaasuu isna kii hore wuu calaacalayay soo maaha kana isagoo faraxsan buu leeyahay qaala tallaahi in kidta laturdiin walowlaa nicmatu rabbii lakuntu min almuxdariin ilaahay baan ku dhaartay marbaad karkaarkay weydaarin gaadhay buu leeyahay marbaad ilugooyin gaadhay ilaahay nicmadiisaan ku badbaaday buu leeyahay fadliga ilaahay subxaana wa tacaala idan waxay tilmaamaysaa qofku hadduu dhisan yahay qariinu suu'iga inuu ama iska celin karo ama isaga hanuunin karo at least haddaanu soo hanuuninaynin inuu maxay inaanu raad ku yeelan karin marka waxaan leenahay waxa koowaad aynu u baahannay haddii dhaqan xumo faaftay laga warramayo waxa koowaad aynu u baahannay waxa weeyaan dadka inaynu tallaallo tallaalka ay u baahan yihiinna waa inaynu diintooda dhisno siiba aliimaanu billaahi wa bilyowmi alaakhir qofku inuu ilaahay rumeeyo ka xishoon karo oo muraaqabadiisa iyo muxaasabadiisa garanayo iyo laba inuu maalin qiyaamo oo janno iyo naar jirto oo inta wax kasta uu sameeyey la hor keeno markhaatina isaga uu isku yahay waa ama janno abadiya geli doono ama naar maxay abadiya u geli doono taa qofku hadday hor joogto oo uu la nool yahay weecweecadkiisu wuu yaraanayaa ka labaad aynu leenahay waynu u baahanay in la islaaxiyo waxa weeyaan guryaheenna waa khatu difaaci aani baynu odhan karnaa gurigu inuu quman yahay labada aabbo ama aabbiyo hooyo siday u fakerayaan inaanay noqonin carruurta in calooshooda un laga fekero waliba dhaqan soomaaligu waa kaa ninku waa nin raga reerku wuxuu cuno hadduu ka dhargiyo guri fiicanna dejiyo hadduu labadaa aada u keeni kari waayana waa wagash wagash nin wanaagsan maaha laakiin waxa labadaa ka sii muhiimsan inaad dadkan diin ahaan dhargin kartid dhaqan ahaan inaad qumanaysaan kartid toosin kartid idan usrada iyo faamiligu inay dareemaan siiba reerka soomaaliyeed sida uu odaygu aanu u seexanin ama islaantu aanay u seexanin haddii ilmahoodu uu caawa gaajo ku seexdo aad buu u warwaraa hadduuse salaad la'aan ku seexdo dee waxba ma dhicin salaad la'aan ku seexdo waxba ma dhicin insha allah nin raguu noqon meelunbuu ka soo bixi baa lagu odhan laakiin hadduu gaajo ku seexdo oo aroortana quraac la'aani u raacdo waxaad leedahay dadka wixii kaa soo horbaxaba adigoo cadhaysan maxaan kaala hadlaya waa reerkii 2 casho dab looma shidin hadda reerku 2 casho ba salaad may tukanin baa laga yaabaa laakiin 2 casho dab looma shidin ayaa agteenna weyn marka waxaan leenahay usradu waxay u baahan tahay waa khatu difaaci alawal inxiraafkan celinaya inay ku dadaasho ka labaad ee dhalinta celinaya waa almadaaris waljaamicaat waa goobaha waxbarashada asalku waxaa la yidhahaa goobaha barbaarinta iyo waxbarashada laakiin inagu waxaynu muhiimadda siinay labada ta dambe goobo waxbarashaynu u qaadanay inay yihiin qofka in macluumaad la siiyo ogaalkiisa in la badiyo waxa uu og yahay waxa ka sii muhiimsan qofku dhaqankiisa in laga warhayo
markaynu dhaqaale ahaan burburre jabnay wax weyn uma aragno inaynu wax ku bixinno inay ubadkeenna u gasho ubadkeenna in macluumaad galaa wax weyn maaha waxa wax weyna transformation information maaha macluumaad maaha ee tarbiya inaynu bedello yaa bedeli kara ugu badan macallinka waxaa la yaqaanaa ilmaha iyo ka jaamacadda ku jiraaba macallinkooda way qadireen waayo inay ka aqoon badan yihiin bay rumaysan yihiin haddaad rumaysantay qofku inuu kaa aqoon badan yahayna dhegaysigaagu uu fiicnanaya laakiin haddaad rumaysantay qofka inaad aduguba dhaanto ka aqoon badan tahay waxaa laga yaabaa inaad wax badan ka dhegaysanin gurigii uu ka yimi waxaa laga yaabaa islaanta joogtay inuu arkayo inaanay iskuul fiicanba ka bixin ama odaygu inuu iska xoogsaday inaanu aqoon fiican leh marka isagaaba isbidaya yarkan jaamacadda dhigta isagaa isbidayaba oo inuu wax bartay oo waa caynkaasi si awgeed ilmuhu intuu ka yar yahay muraahiqa bay yidhaahdaan dhowr iyo toban jirka intuu ka yar yahay aabbihii hooyadiiba dadka ula weyn oo wax walba ka dhegaysta waxay ku yidhaahdaan laakiin wixii intaa ka dambaysa waxaad moodaa qaamada odayga iyo islaanta way soo gaabtaan isna uu sii dheeraadaa laakiin yuu ilmuhu mar kastaba u yaqaanaa ama ninka dhallinyaradii mar kasta yuu u yaqaanaa wax aqoon ninkan hortaagana wax dhigaya ama macallin iskuul ha noqdo ama professor jaamacadeed ha noqdo meelaha goobaha waxbarashada qofka jooga eraygiisu hadduu yahay eray wax toosinaya wuu u dhaga nugul yihi laakiin haddaanay goobteenna waxbarasho qaabkaa u dhisnayn ay u dhisan tahay qaab duruuftu ku kaliftay baaba laga yaabaa oo ah see loo samayn karaa dhaqaale uu ku dhisan tahay iyana dhibteeday leedahay laakiin waxaan leenahay haddaynu rabno dhallintu inay hagaagto waalid iyo dawlad iyo macallinba intaynu isu tagno waa inaynu hagaajinnaa goobta waxbarasho ama iskuul ha noqdo ama madrasadii ama malcamad ha noqoto ama jaamacad ha noqotee inaynu soo saari karno dad values leh waxa intaa dheer bay yidhaahdaan oo iyada mashkiladeeda sidii mala dee deris gaaraa loo qabanaya saan liiska ku arkay aanan ka hadal wasaa'il al-iclaam iyo wasaa'il al-ijtimaaciya waxa kan warbaahinta ama dee tanaynu jeebka ku sidana ha noqoto ama ha noqoto tan guryaha inoo taale tviyada ama waxa kan waxaasi waxna waa qalloocin karaa waxna waa sixi karaa inkasta oo macalasaf soomaalida warbaahinteeduna inta ugu badan leh waa profit minded iyaduna sida waxbarashadaan ka sheegno ka sii xun waa lacag raadin maadaama ay lacag raadin tahay value-gu qiimo badan inaan ugu fadhimin bay u badantay kuwan yaryara tiktok-ka ka soo hadlaya daawashay raadinayaan si sanaati loo siiyo kuwan facebook-ka ka soo hadlaya daawashay raadinayaan si sanaati loo siiyo kuwan tv-ga soo eraya in daawashadoodu badataa bay rabaan dabeetana aflaam iyo qurunqadhaadh waa inay soo daayaan si daawashadu u badan idan waa viewers saad u heshaa daawadayaal saad u heshaa daawadayaashana dadka in caqligooda lala hadlo marar badan waxa ka badan shahwaadkooda iyo qaraa'istooda in lala hadlo sida ogeed baa inta badan riwaayadaha iyo aflaamta iyo waxaasoo dhammi intooda badani qurunkay ka shaqeeyaan waayo dadku halkaasi u nugul yihi halkaasuu dadku u nugul yihi meeshuu u nugul yaha markaa dhaqaalaha laga sameeyaa innaga wasaa'ilshaas iclaamiga iyo internetka iyo waxoo dhammi waxay u badan yihiin inay dhaqan xumo iyo wanaag oo dhan ka tallaabaan sababta koowaadna aanay ahaynba afkaar ay faafinayaanba ma aha waa hungura keenay un si uu u helo viewers iyo ciddaa wata ayaa waxaa kaa meelay idan kuwa haddii la islaaxin karana islaaxoodu wax badan buu ka keenayaa waxyaabaha islaaxintaa ka qayb qaadan kara ee hagaajin kara waxaa ka mid ah ixtidaan jiili shabaab dhalinta inaan la firdhine la soo dhoweeyo ama waayeel ha noqoto ama macallimiin ha noqoto ama aimada masaajidda iyo madaarista joogta ha noqoto ama dadka wax dhiga ha noqoto in tawaasul lala samayn karo dhalinta xidhiidh lala samayn karo lala sheekaysan karo la ixtidaani karo
awqaadkooda firaaqada in loo samayn karo in loo buuxiyo waxuuna aakhiradooda iyo adduunkooda wuxuun ka tari kara wuxuu doonaba ha ahaadee ama naadi thaqaafiya ha ahaado ama naadi luqo iyo fanka uma jeedo kan soomaalidu fanka u taqaanay waxaan uga dan leeyahay funuunun wax tari karta qofka bini aadamka la bari kara ha ahaado ama xataa riyaadiyaad jidhkooda dhisi kara laakiin hadaf leh ha ahaada wuxuu doonaya ha ahaadee inay bulshadu ixtidaani karto inay bulshadu hanan karto ixtidaanku waa hanasho inay bulshadu hanan karto ficida dhalinta ah waxyaabaha dee u baahan in wax laga qabtee waxaa wax ka tari kara waa in ummaddu dhaqaalo samayn karto faqriga in lala dagaalami karo siiba dhalinta in la bari karo waxay ku shaqaystaan oo ku xoogsadaan callimhum kayfa yastaad bay yidhaahdaan qofka waxa siina waxaad bartaa bay yidhaahdaan siduu u ugaadhsado wax siin joogtii waxba ma tarto laakiin in qofka shaqo abuur loo samayn karo waddankeenna dhibta ugu badani shaqo la'aan maaha waa jahli dhulku waa inaga badan yahay meel waliba waa bannaan tahay waxaynu cunno maynan soo saari kari waayine waxaynu garan la'naysa inuu soo saarno inaga dhibta in haysata waa kaa dadku waa dhallinyaro dhul badan waa la haystaa wax badan waa la heli karayaa laakiin jahliga wuxuu sababay dee ummadi horumarba ma samayso wax soo saarna ma yeelato laba shay hadday ka dhargi weydo dunida horumartay oo dhanna labada shay baa asal ah energy biyo iyo layd innagana waa labada inoogu daran horumar xaguu ka imanaya markaa bini aadamku hadday uu biyo waayo iyo hadduu casrigan dambe layd waayo labada haddii la waayo horumarba ma jiro labadaasi laakiin hadday mutawafir noqdaan dadku in yaroo wax la baraa buu u baahan yahay wax badan ummaddu way la soo bixi kartaa alla ka cabsigii iyo dee taqwadii iyo yaxsabuhum aljaahilu aghniyaa min atacafuf inay dhici karto qofku isagoo faqiira walidalik baa nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista culamada qaarkood saxiixa ku tilmaamaan qaarna xasanka ku tilmaamaan waxaa ka mid ah waxyaabuu ku ducaysan jiray inay ka mid ahay allahuma ina acuudu bika min alkufri waalfaqri wa cadaabi alqabr ilaa waxaan kaa magan galay gaalnimo iyo faqiirnimo iyo cadaabulqabriga ma aha inuu xoolo badan doonayay nebigu bale wuxuu lahaa allahuma ajcal risqa ala muxamadin quuta laakiin dee quudka laftiisa haddaad weydo waa balaaya markaa faqrigu waa kaa waa marka qofku wixii la liqi lahaaba ay qirinqiir galaan wax dhow maaha saa awgeed nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka dalbayey inuu risqa reer aal maxamed aanay xoolo badanba noqonay inay quut noqdaan laakiin haddana wuxuu ilaahay ka magan gelayey alkufru waalfaqr ilaa saaxabi ka weydiinayey labadaa miyaa la israaciyaa yacni ma laba mar la wada dalba in ilaahay laga wada magan galo xadiisku saasuu tilmaamaya waxay leenahay marka bulshooyin badan faqrigaa ku kalifa inxiraafaadka oo haddii iimaankuna aanu xoogganayn dadkiina faqrigu haysto beenta iyo khiyaamada iyo nifaaqa iyo isweydweydaarinta ayaa badanaysa waxaynu odhan karnaa waxaaynu sheegnay oo dhammi waa iska aragtiyo guud bataalada iyo faqriga iyo waxaa in laga takhalluso amni inay ummaddu hesho oo amniga iyo istiqraarku wuxuu ka mid yahay bay yidhaahdaan waxyaabaha inxiraafka celiya ummad kastoo dagaal gashaa bay yidhahdaan traumatized bay noqotaayo inxiraafaadku waa ku bataan day dadku deganaanshiyaha waayaan mar kastoo deganaanshiyuhu lumo dee dil iyo dhac iyo boob iyo wixii ka hooseeyeyba way bataan waxay yidhahdaan waxyaabaha islaaxaasi dhalinta keeni kara waxaa ka mid ah iyagu qolada gaaleed markay qorayaan waxay yidhahdaan tafciil ilqaanuun qaanuunka in la hirgeliyo qolada muslimiintii markay qorayaanna waxay ku tilmaamaan alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar dee dadka wixii qalbiga soo dhaafa wax kaloo lagu xadeeyaa dee inuu jiro yani hargeysa waxaa laga yaabaa dad badan inuu fiican yahay
laakiin 10 tuug baa xagga kale u rogi kara daani jirin 10 ka waxa daynaya ahlu fasaadku iyagoo yar bay meesho dhan qasi karaan haddii aanu jirin maxay waxa daynayo celinaya marka systemku inuu isna system shaqeynaya uu yahay oo al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ama systemka qadaa'iga iyo waxa kale cuqubaadka iyo waxa kale inuu jiri karo dadka radicin karo laakiin waxay yiraahdaan radcintaasi inta badan waa inay la socotaa ta'hiilul munharifiin kuwa qalloocday in la farsamo baro qofka dad xabsiga ku rido oo dabeetana uu tago 10 khabiiro ka sii horeeyay rag qallooca khubaro ku aba si fadhiya day tuugatiya day dilteenta oo kuwa ka soo dhageysto isagoo qalin jabiyo kugu soo noqonaya maad ciqaabin markaas course baad u dirta course lagu sii barto farsamada dunida loo fasahaadiyo ayuu soo qaatay haddana marka wuxuu kugu soo noqonaya isagoo khabiir cusuba idan waxay yiraahdaan ta'hiilul munharifiin dadka la ciqaabay in iyana nolosha inay ku soo noqon karaan loo tababaro diin ahaan dhaqan ahaan farsamo ahaan gobolada waqooyi tujaartii ugu waaweyneed rag ka midi deenta la xidhay in bay xabsiga waxoogaa nijaaradii wax ka soo barteen markii dambana maalqabeennada waddanka ay noqdeen yani qofka in ta'hiil la soo siiyo waxaan ku soo koobayaa inxiraafaadka khaarijiga ay dunidu dagaal bay ku jirtaa dadka caamadii dagaalka inta badan kan qoriga un bay u yaqaanaan kan xabadda ah laakiin waxa ka daran qofku inuu qalbiga iyo caqliga iyo diinta ka dhinto oo haddana ka tirsan yahay kan xabadda lagaaga dilay wuu ku dhaafay wuxuu kaala tago in xooggiisa iyo caqligiisa iyo tamartii uu bulshada ku kordhin lahaa habuu kaala tagay laakiin kan la dilay haddana nool waxa weeyaan waa caqli iyo qalbi iyo awood wax sii fasahaadinaysa kaligii muu dhimanin laakiin wuxuu samaynayaa maxay bulshada inta kale inuu sii fasahaadiyo duniduna saynu tilmaamnay dagaalka khaarijiga ma dhamaanayo ilaahayna quraanka waa ku tilmaamay walaa yazaaluun yuqaatiluunakum xataa yaruddukum can diinikum baa ilaahay yidhi ilaahay macid baa ka run badan marnaba ka zuuli maayaan baa ilaahay yidhi ka hadhi maayaan inay idinla diriraan dirirtu ama mid toosa ha noqoto ama mid dadban ha noqotee ilaa ay diinka idinkaga saaraan baa ilaahay yidhi walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum wadduu low takfuruuna kama kafaruu fatakuunuuna sawa waxay jecel yihiin baa ilaahay yidhi maanta ururada kaloo dhan ka kaale ilxaadku soo maaha nin le ilaahay ma jiro kan dambe waa la faafiyaa oo muxuu ka faa'iidayaa muu isagu iska yidhaahda ilaahay ma jiro deetana suuqiisa galo muxuu ka helayaa ururaa jira mu'tamaraad sanawiya bay leeyihiin jaamacadaa maalgeliya dadyowbaa maalgeliya dhaqaalaa lagu bixiyaa xataa waxay samaysteen amaakin ay yidhaahdeen waa amaakinu lcibaada iyaguna bal qiyaas ninku le ilaahayba ma jiro oo haddana kule waa non religious churches bay ku leeyihiin churcheska dadka aan waxba rumaysanayn maxay ku qabtaan markay isu yimaadaan waa la isu yara heesaa music baa la isu tumaa dadka waa la waalaya unde waa la madadaaliyaa waa church la imanayo idan taasaa lacag iyo caqli iyo xoog iyo cilmi lagu bixinaya wixii ka soo hadhay maxaad u malaynaysaa markaa taasoo aan waxba ka dheefaynin ayuu waxaasoo dhan ku bixinayaa waxa ka soo hadhay maxaad u malaynaysaa markaa hadday tahay gender iyo dumar baa la xoreynaya iyo rag iyo dumar baa siman iyo rag iyo dumarkuba labaduba ninna waa noqon karaan naagna waa noqon karaan iyo wax la mid oo dhan waxaasoo dhan dad baa dabada ka wado xoolo iyo adduunku bixinaya se ilaahay wuxuu ina yidhi isagoo nebigiisa la hadlaya walaa tutic alkaafiriina walmunaafiqiin wadac cadaahum watawakal cala allahi wakafaa billahi wakiila idan ayuha alaxiba
waxa aan soo sheegno dhamme waxna waa inxiraafaat waxna waa sidii inxiraafaadka loo daweyn kari lahaa wasaaisha loo baahan yahay in la isticmaalaana dee waxa ugu sii mudanun al-uswa al-hasana wal-iqnaac bay yidhaahdaan inay dadku dad ay ku daydaan wanaagga inay helaan iyo in dhallinta la qancin karo ku dayashada dee ilaahay baa kitaab iska soconaya ma soo dirina rusul buu soo diray bale rususha laftooda la soo siiyey cid ay ku daydaan ilaahay nabi maxamed muxuu ku yidhi intuu ambiyadii uga soo sheekeeyey fabihudaahum iqtadi iyaga hanuunkooda ku dayo cid aan cid ay ku dayata haysan aadam baa ka jiray baa la yidhi iyo dee xawo iyagana iyagaa traininka la isku siiyey aadam iyo xawana iyagaa inta jannada la geeyey training la soo siiyey markay arkeen sida bini aadamku u jabo baa la yidhaha daba shaqo taga ayaa dhulka la keenay wixii ka dambeeyey oo dhanna tusaalaa la siiyey cid ay ku daydaan waa al-uswa ka labaadna waa al-iqnaac ninkii dhallinyarada ahaayee intuu nebiga u yimi yidhi zinada ha lay fasaxo nebigu calayhi salaatu wasalaam mana dagaalin mana maagina waa maxay waa qanciye atuxibuhu liummak ku lahaa hooyadaa miyaad la jeceshay walaashaa la jeceshay kan la jece maya markuu isa soo wada taagay buu u sheegay dee dumarka kalena dadunbay hooye iyo walaal iyo habaryar iyo eedow yihiin qur-aankana ilaahay qiso inoogu tilmaamaya dhallinyarada ku saabsan oo suuratu luqmaan ilaahay kaga warramayo luqmaan alxakiim waa nin xikmad badan baa ilaahay ku tilmaamay xikmaddiisiina waxaa laynooga sheegay wiilkiisii siduu u waaniyey wiilkiisii wuxuu ku waaniye uga bilaabay yaa bunaya laa tushrik billahi ina shirka la dulmun cadiim iyo aakhiro fainaha in taku haddii ay dhagax ku jirto iyo hadda samada iyo meel kastaba in aakhiro la keenayo la xisaabayo aliimaanu billahi wa bilyowmi alaakhir buu uga bilaabay dabeetana cibaadaadku ugu xigsiiyey oo salaada aqim الsalaa nebi moxamedna kii la yidhi waxbuu xadxadayay salaatuhu satanhaah buu lahaa ilaahayna qur-aanka muxuu ku yidhi ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar cibaaduu ugu xigsiiyey dabeetana sabir buu ugu xigsiiyey dabeetana dadka iyo sida loola dhaqmuu ugu xigsiiyey walaa tusacir khadaka linnaasi walaa tamshi fi lardi maraxa iyo in allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur idan qisadaasina waxa ay tilmaamaysaa dhammaanteed suluug iyo dhaqanka dhalinta sida loo bedelo haddii rabtaa waxay u baahan tahay inay tafaasiirta akhrido ku samayso daraasad dhab ah waxaan ku soo koobaya waqtigii salaaday gaadhe anigu si guud baan u tilmaamay waxyaabaha laga qorqoraa wax ka mid ah waxaan kaloo si guud u tilmaamnay nusuusta qur-aanka iyo axaadiista ee masaa'ilkaa ka warrama waxay tilmaamayaan laakiin waxay inooga baahan yihiin wax camaliya waa shaqo camaliya hadday daraaso tahayna inaynu si dhaba u daraasayno dadkeenna qalloocoodu xagguu u badan yahay kadibna inaynu si dhaba u daraasayno xalka inoogu dhowe aynu samayn karnaa muxuu yahay markaas un baynu ka bixi karnaa ama cabashada tirada badan leh ee badhkeenna la qayliyaan gaalaa soo duushay gaalo weligeedba duulimaad bay ahayd badhna la qayliyaan xumihii baa batay waxba iskuma bedelaan dabcan wacyigelintu waa ka mid dadka in la ogeysiiyo in dhibi jirto markaasuu bilaabmaa dareenkaa in xalka la raadiyaa laakiin waxaynu u baahannahay xal inaynu raadinno qur-aankaas baana xalku ku jiraa haddii aynu si dhaba u raacayno oo si dhaba ugu dhaqmayno sala allahuma calaa nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasallam